Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu asxaabta aan jeclahay meel walba oo aad dunida ka joogtaan. Waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho dowladda dalka Mareykanka ayaa sheegtay inay mamnuuci doonto isticmaalka aaladda TikTok gudaha dalka Mareykanka. Labada aqal ee Mareykanka ayaa maantay u codeeyay in laga mamnuuco dalka Mareykanka isticmaalka aaladda TikTok amba milkiilaha TikTok uu ka iibiyo dowladda dalka Mareykanka. Sidaan wada ogsoonahay 170 milyan oo muwaadiniin Mareykan ayaa isticmaasho aaladda TikTok. Qaarkood waxay ka sameeyaan malaayiin lacag ah bil waliba. Suurtagal ma tahay in TikTok laga mamnuuco gudaha dalka Mareykanka? Dowladda dalka Mareykanka waxay ku andacoonaysaa in dowladda China ay hesho xogta muwaadiniinta u dhalatay dalka Mareykanka, sidaa darteed dowladda Mareykanka ay u doorbidayso inay iibsato aaladda TikTok. Haddii aan isla fiirino hadalka Mareykanka, macquul ma yahay oo China ma isticmaalaa xogaha muwaadiniinta dalka Mareykanka? Waxaan ogsoonahay Mareykanka inuu leeyahay aalado fara badan oo laga isticmaalo social media sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram iyo boqolaal kale. Ayaga xataa way helaan xogaha muwaadiniinta kale ee caalamka. Marka tan waa marmarsimo loogu soo gambarayo milkiilaha TikTok amba si aan dhihi karno handadaad naga iibi, haddii kale halkaan lagama isticmaali doono. Adiga i daawanayo, aragtidaadu waa muhiim. Sidee kula tahay? Fikirkaaga qaybta commentiga. Haddii hore follow aan noogu ahayd waa mahadsantahay, haddaanan noo ahayna haddana soo follow gareey. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.